tartanka orodka 10 kiiloomitir iyo 5 kiiloomitir ayaa galabta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Tartankaasi waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala timid 8 degmo ee ka kooban tahay caasimadda magaalada Hargeysa, waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda ciyaaraha ee dhalinyarada, sidoo kalena waxa maalgelisay shirkadda caymiska ee Takaaful. Tartankan waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee dhalinyarada Soomaaliland Boos Mira Maxamed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo madax ka socotay wasaaradda. waxaana ka hadlay kamid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada, gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ciyaaraha Boos Mira Maxamed. kubadda cagta baasidkii dhammaan ciyaarihii aan u bilaabay dhalinyarada maxayda Jubbada Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada caasimadda waxaan u bushaareynaa in ciyaarihii ay dib u soo noqonayaan si joogto ah u soo noqonayaan ciyaarihii oo aad maxayda gaab baa jiray maxayda waqti ciyaaruhu kala go'een, laakiin marka wasaaraddu waxay qorsheynaysaa sidii ciyaarihii ay dib u soo noqon lahaayeen oo dhalinyarada lagu mashquulin lahaa maxayda ciyaarihii sports ciyaaraha runtii lagu dhiirigelinayo dhalinyarada oo lagaga wacyigelinayo waxyaabaha kale ay ku mashquulayaan. runtii waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan orodyahanno ka qayb gala tartanada gobollada kuwa caalamiga ah. maanta waa maalin aad iyo aad farxad u leh. halkan waxaynu u joognaa orodyahanadeenna oo ka qayb geliya orodyahanadaas ilaa 150 ku dhow, orod 5,000 iyo orod 10,000. intaa marka laga soo wareego intii laga sheegiyey waa la sheegay. halkan waxaynu filaynaa inay nimankii orodka inoo qaadi lahaa ay ka soo baxaan insha allah. halkan iyo caasimadda keliya maaha, caasimaddii gobollada sidaasi leg baanu doonaynaa inaanu uga bilowno. tartanka 5 kiiloomitir waxaa kaalinta koowaad galay Cabdinaasir Maxamuud Cilmi oo ka socday degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa. sidoo kalena waxaa kaalinta koowaad u galay tartanka 10 kiiloomitir Saciid Farxaan Cumar. kaalinta labaadna waxaa galay Xamse Haybe Aadan. magacaygu waa Cabdinaasir Maxamuud Cilmi kana socda degmada Gacan Libaax. halka waxaan ka salaamayaa orayn macallinkayga koobaad ee soo tababaray cali iyo macallinkayga labaad Axmed Cismaan Cadaani oo iyagu aad igu soo dadaalay halkan maanta iyaga soo gaarsiiyay. magacaygu waa Saciid Farxaan Cumar una orday degmada 26 Juun. waxaan ka soo galay kaalinta koobaad. allah ma hadlay igu guuleeyay mar labaad inaan ku guulaysto 10 kiiloomitir. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Xamse Haybe Aadan kana tirsan ciidanka booliska. waxaan u orday degmada Axmed Dhagax. waxaan galay kaalinta labaad. alxamdulillaah ilaahay ma haskale inkastoo kaalinta koobaad doonayay laakiin tanba waa caadi alxamdulillaah. Cabdirashiid Ismaan Shaalco, wararka warbaahinta SBC, garoonka kubadda cagta magaalada Hargeysa.